سؤال شو هو كويدين يا حويان مدلحي 8 سنة dalkan Djibouti xukumaysay maxaad maanta ku faani kartaa oo isleedahay Djibouti waad gaarsiisay wax badan oo faan haddaan la oranayna laakiin wixii waajibaadkayga ah ku aadana wadankan horta istaagistiisa xoojintiisa midnimadiisa qaran yani dib u abuurkeed wixii aan islahaa waxa ay wadanka u taraysa ama aniga waajibiga adanay inaan inteeda badan waan qaldami karaa waan gaabini karaa laakiin waxaan isleeyahay yani wadan maanta la qiimeeyo oo ma garanaysa ay Afrika iyo Carabta iyo Islaamkaba wadan yani la dhageysto la qiimeeyo dadkiisana ay wali dhibaatooyin dhaqaale ha haystaan haddana inay soo toosayaan yaan isleeyahay waxaad sheegtay inaad qaldami karto bini aadan baa tahay qalad aad garowsan tahay oo isleedahay ilaa 16 sano way ka dhaceen ma jiraan waa jiraan laakiin sidee yani over confidence dadka aan u yeeshay qaarkood dhibaatooyin wadankana soo gaarsiiyay ayaa ka mid ah kuwa aan isleeyahay waad ku qaldantay oo markiiba inaad madaxa ka qabato ama aad iska ilaaliso ama aad iska eegto ayay ahayd aan isleeyahay ayaa jira laakiin sidee ilaan wadanka xaalkiisu kelidii ma noolo island maaha waxa weeyaan waxaad yani deegaan aad ku nooshahay baa jira waxay kugu samaynaysaa ta'tiiraad bay kugu samaynayaan wixii hareerahaaga jira dee halkaas sidaad uga dhex guuri lahayd adigu eed wadankaaga uga badbaadin lahayd dhibaatooyin kaa soo gaara wadano kale ama shucuub kale ama dhacdooyin ka dhacaya wadanada agtaada oo aanad yani waa inaad ka badbaadin karto wadanka madaxweyne mucaaradka markay hadlayaan dabcan Djibouti maanta xildhibaanay ku leeyihiin mucaaradka baarlamaanka haddana markay hadlayaan waxay sheegaan in dimuqraadiyad furfuran aysan Djibouti ka jirin dhaliisha noocaas ah maxaad uga jawaabi lahayd halkaan ka soo namadnay annagu iyo halka aan joogno iyo sida ay iyagu doonayaan mucaarad yiraahda dawladdu way qaldantay waan aragnaa dawladdu ma jirto mucaarad yiraahda ma ogin annagu kaana uma haysan annagu mucaarad marska dimuqraadiyadda kuma jirto waxa waad samaysay waxa waan kugu dhaliilaynaa waxaasna waa fiican iyaan fahmaya oo noo haystaa dad ka qayb galaya noloshii ka qayb galaya maxaa la yiraahdaa horumarkii ka qayb galaya dhismihii wadanka kuwa baan haystaa kuwanisa wali iyaguba waxay baranayaan waligood mucaarad may arkin mucaaradnimadu waxay tahay ayay baranayaan waxay leeyihiin dimuqraadiyaddu waa sida France ay ku arkeen sida ay Brussels ku arkeen fawdad inaan la isdhex yaaco anaguna waxa ma yeelay taas ma yeelay qof aan siyaasad lagu xidhay ma hayno qof la dilay ma hayno qof ma garanaysaa ee ra'yigiisa guriga intoo loogu tagay lagu dilayna anagu ma hayno waxaasina waxa weeyaan xurmada qofka bani aadamka kolku wadan yahayna ka basii daran laakiin haddii uu doonayo qas haddii uu damacsan yahay inuu meesha aan doonayaa meesha ka kacado oo anaa ku fadhiisanaya ay hadalkiisu tahay lama yeelay deka wuxuu doonayaa ila wuxuu doonayaa isku sawiro wuxuu doonayaa u diro faranjiga laakiin anagu waxaan yeelayno waxaasi ma dadka madaxda iyo dadka shacbiga aba waxaan ka mideysanahay inaan wadanka ka badbaadino dhibaatooyin aan ka badbaadino qas waxa aan ku noolnahay kabitaalkeena waxa weeyaan nabadda waxa weeyaan deganaanshaha waxa weeyaan xasiloonida haddii qofkii bani aadamka ee ganacsi leh
waddanka ku nool ama shisheeyaha ahaado ama sokeeyaha ahaadee uunan ka badbaadi karin in meeshiisi la dhaco in dariiqa lagu dilo in la dhibaateeyo hadduuna hubin inuu ku noolaan karayo waddanka nabad iyo xasilooni anigu meesha waxaan ka samaynaya ma garanay taasina waajibaadkayga ugu horeeya wey kolkaa maxaa lagu odhan mucaarad baa hadli heblaaya hadli hebel baa hadli aniga waxbaygaga ma jiraan shacbiga waxaan ugu dhaartay waxa weeyaan inaan nabad keeno inaan xasilooni ku keeno in aan badbaadiyo noloshooda si u dhantahay miskiinka iyo ka waxaystaba caruur soo ururiyo oo dhulka qasgeliyo tuug iyo qaswada waxa dhex ordo isla waraysigaasi madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Gili waxa kale uu ka hadlay ciidamada ajnabiga ee jooga dalka iyo xaaladda dalka Soomaaliya mar kale iyo hadalka madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti waxay xarun u tahay military fara badan oo shisheeye ah oo dabcan dee lacagna ku bixiyo waxayna ku taalaa mandaqad muhiim ah shisheeyaha militariga ee dawladaha badan isugu jira ee idin la degan adigu maxaad ka heshaan dakhligu macna uu leeyahay ma jiro xisaab ahaan markaad eegto budgetkayga markaad eegto 10% maaha waxaan annagu u samaynaynaa ka badan aan cashuur dhaaf u samaynayno ayaa ka badan laakiin waxa aan ku sheegay waddankeena inuu noqdo waddan jira waddan la aqoonsan yahay waddan la ixtiraamayo waddan la qiimeeyo waddan ka qayb galaya nabadgelyada adduunka iyo yani xagjir la dagaalan hadday tahay budhcadbadeed la dagaalan hadday tahay nabadgelyada guud ee adduunka hadday tahay qaybtan aan ku leenahay meesheenii si aan uga ciyaarno weeyaan annaga waxaana waday maaha lacag baad ka helaysaan maaha waan gartay aan Soomaaliya usoo qaadano tusaale waxaad usoo qaadatay madaxweyne in nabadgelyada gobolka aad ka qayb qaadataan Soomaaliya ciidan baa idinka jooga horaanna dee shirkii cartaad qabateen muddo wad ku mashquulsanaydeen nabadda iyo deganaanshaha Soomaaliya haddana shabaab waa dhibaato jirta ciidamada waddanka idinka jooga maxaa qaldan xaggee wax laga qaban lahayd haddii aad garanayso Afghanistan waqtiga Taliban ay qabsatay waddankaasi ee ciidanka Mareykanka iyo NATO oo dhan uu iskugu tagay halka iyo maanta haddii markii hore ayna ka roonin maanta wax roonaasho la yiraahdo lagama arko waayo xaq jirkani meesha uu galo si looga saaray qoodu doonay ha ahaado si looga saaray way adagta dagaalka Soomaaliyana dee sida kuwa loo qiimeeyo ee loogu dhinto ama loogu dagaalamo ama loogu bixiyo xoolo badan maaha sida daradeed Soomaali dilaysana weeyaan dee kii doonaya inuu jannad ku tagay laga yiri lacaggeena uu keenaa kii lagu yiri naftaada geena uu keenaa kii tababar u sameey laga yiri dadkana uu tababaraa meel kastana way ka yimaadaan dee shacbigii Soomaaliyeed ee miskiinka ahaana halkii buu ku ooyaya cidda u soo gurmatay wax aanan munazamadaha ama ururada dadka wax tara aanay ahayn wax kale oo itaal leh oo garab joogsada dawladda Soomaaliyeed ma hayno wali